wardegdega daawadayaal dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in la bedelayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Dekedda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee aadan cad ee magaalada Muqdisho waayii ugu dambeeyay mid xanteedu ay soo baxayso bulshadu ay si hoose isku wareysanaysay ayay ahayd. dowladuna qorshayaashaasi waa soo waday si rasmi ah ayayna maanta ugu dhawaaqday in gabi ahaanba garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho iyo dekedaba la bedelayo oo meel kale laga dhigayo halkana dowladdu ay hawlo kale ku fushanayso. xogo hoose oo helay ayaa sheegaya in ganacsato laga iibiyay garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho iyo dekedda magaalada Muqdisho oo saaran ruuxantii ama ku taala meel istiraatiiji ah qaybo ka mid ah horay ayayba dowladdu u iibisay. inta hadda xasan u imaaday ayaa qaybihii ugu badnaa sida xaruntii lagu dayactiri jiray konteenarada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dekedda oo afaafkeeda horay ayay xukuumaddu u iibisay. ayaan darre inteeda leeg waayahan dambe iibinta dhulka danta guuda ayaa si fudud oo sahal ah ugu gacan gashay ama ugu suura gashay in xukuumaddu ay iibiso. raashinka saxanka kuugu jira markaad cunayso gooyaha ayaa laga soo cunaa kadibna meesha dhaxda ayay ugu dambeyn laga dhameeyaa oo loogu imaadaa. dowladdu daafaha ayay ka soo cunaysay xarumihii danta guud oo dhan waa soo dhamaysay. haddana garoonkii diyaaradaha ee aadan cad ee magaalada Muqdisho iyo dekedii oo ugu dambeysay ayaa jilbaha loo xabaashay. haddaba xagee laga dhigayaa deked iyo sidoo kale garoon diyaaradeed suurtagal ma tahay arrintani? waan dul istaagi doonaa. waxaan dhinaca kale eegi doonaa kacdoon shacab ayaa gobolka Banaadir ka bilowday walow ciidamo loo diyaariyay oo ka hortag la sameeyay. xalay waxaa xabsiyada lagu guray ganacsato waaweyn oo doonayeen inay dibadbaxyo ayagu ay horkacayaan ay ka dhigaan gobolka Banaadir. waxaa sidoo kale la xidhay dad shacab ah oo ayagana lagu tuhunsan yahay inay abaabulahayeen ama ay doonayeen inay horkacaan dibadbaxaasi kacdoonka ee looga soo horjeedo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. kacdoonkaasi iyo waxa uu salka ku haya iyadana waa dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay magaalada Muqdisho horta musiibo ku habsatay. aan wax kale oo dhaho garan maayo. musiibo ayaa run ahaantii ku habsatay. ma waxaad aragtay dowladdan oo ninba meeshuu ka soo gaaro dhulka boobaya oo shacabka xoogaya oo wax faramaroojisanaya oo nin walba u shaqo tagay war halkeen wax ka boobay oo ka daadsadaa u soo shaqo tagay miyaad aragtay? dowladdii dhannayd waxay noqotay mid xarumihii danta guud u kala hormarta. waxay noqotay mid dadkii shacabka aan danaynaynin oo kii tabarta yaraa intii lagu istaago dhulkiisaba laga qaadanayo xoog lagu sharciyeysanayo ama la iibsanayo ayay noqotay. waa ayaan darro inteeda leeg weeye. waayahan dambe ama 2 sano iyo barkii xasan uu joogo ama 3 sano baan dhahnay xasan uu joogo waxa ugu badan ee bulshadu ay hadal haysay waa musuqmaasuq, boobka dhulka, iibinta dhulka danta guud ayay ahayd. waxay soo socoto gobolka Banaadir la soo jafo kolba qayb la soo iibiyo kolba qayb la soo gado kolba qayb la soo cuno kolba la soo wadaba. waxaa hadda la iskugu imaaday dekedii iyo garoonkii oo ayaga naftirkooda qaybo ka mid ah horay loo iibiyay. xanteedu marka way soo socotay waayahanba oo hawshaas bulshada Soomaaliyeed garoonka la iibinaya, garoonka loo soo socdaa, dekedda loo soo socdaa, xagga loo soo socdaa. arrin la hadal hayay bay ahayd oo bulshada Soomaaliyeed ay si weyn u hadal haysay oo la isweydiinayay. si rasmi ah ayay dowladdu maanta ugu dhawaaqday in la iibinayo garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho iyo dekedii weyneed ee magaalada Muqdisho labadaba. haddaba maxay u sababeeyeen? waxay dhaheen oo ay u sababeeyeen garoonka wuxuu soo galay baa layidhi magaalada dhexdeeda. garoonkii waa magaalada dhexdeeda uu soo galay, dekeduna magaalada dhexdeeda ay soo gashay, xaafadihii baa dhinacyada ka maray. sidaa awgeed meel 37 kilomitir u jirta magaalada ayaa laga dhigayaa garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale dekedaba. waa laga fogeyn baa layidhi magaalada. oo tan maxaa lagu samaynayaa? tan dowladda u baahan baa layidhi, dhulka dowladda u baahan. ma waxaad aragteen garoon aan magaalada dhexdeeda ku helin? Nairobi aan ka soo qaadno magaalada 4 gaar bay ka martay garoonka. 2 garoon bay leedahay, garoonka internationalka iyo midka kale ee localkaaba. midka localka waad aragteen magaalada meeqay dhaaftay
xagee loo dhaafay turaaba ilaahay baa loo dhaafay garoon aysan magaaladu dhinaca kale ka marayn haddii xataa 30 kilomitir iska daya 100 kilomitir dowladdu ay muqdisho ka fogeysa garoonka magaaladu way gaari 4 gaar baa laga marayaa 4 gaar baa laga marayaa midda kale xarumaha danta guud ee waxa danta guud ee bulshadu ay leedahay waxaa la rabaa in la qeexo oo la yiraahdo shaygan meeshan waa dan guud dowladdu waxay uga maarmi weyday waxaas iyo waxaas lagu qabanayaa waxaas lagu qabanayaa marka lama dhahayo dowladda u baahantaa la leeyahay maalinta dambe niman ganacsataa lagu wareejini waa la jarjari jag hoteella casriya waa meesha ka taagan war ileembelo war meeshan soo garoonkeeni maaha war meeshan soo xaruntii danta guud maaha war meeshan soo ummadda soomaaliyeed waxay wada lahayd maaha waa maxay dadkan shakhsiyaadka ee ku ganacsanaya ee howlaha ka samaystay waa maxay say wax u jiraan waa arrimaha la yaab kale weeye waxaa kaloo la yaab leh madaxtooyada lacagta lagu kala qaadan baa lagu leeyahay oo madaxweynihii baa ku gorgortamaya madaxweynihii ayaa lala gorgortamay inta iga sii intaasan kaasin ishu buu halka lacagta ugu shub ee akoonka noocaas dibadda ugu shub bangi hebel lacagta dad qaad bangiga noocaas ugu shuba waa bangiga aan la daba gelayn oo akoon uu ku leeyahay waa ayaa dareentada laagway magaalada muqdisho 3 sano waxaan barakacin ahayn oo shacabku ay ka faa'iideen xukuumadda jirtay ma jiro war meeqa xafadood baa la soo barakaciyay ilaa 12 xafadood oo dad masaakiina hooyooyin danyara ay deganaayeen ayaa la barakaciyay xasan intuu soo istaagay baa wuxuu yiri aniga dabaqyada aan dhisanayo iyo waxa weeye inaan 10 dabaq dhisto hooyadan baahan ee iskuulka ilmeeda geysan kara waxa weeye waxba kama quseeyo ayada waxba kama quseeyo ilmeeda iskuulka ka baxsato ha geysato oo waxa barto maxaa ka quseeyo aniga dabaqyadayda waa madaxweyne dhan waxa kale oo soo istaagay uu yiri caruurtayda 12 ba jaamacada ka baxday jaamacada ka wada baxeen qaarna hadda jaamacadii Mangaano way ku soo socdaan jaamacada iga wada baxeen kulligood jaamacada uu ku faantamaya dadka uu la hadlayo ee Soomaaliyeed qaybta meesha fadhida iyo ummadda Soomaaliyeed ee meel walba joogaan noloshii bay la daadaan dhacayaan waa ninkay ka sugayeen inuu waxbarasho jilicsan ama firiya uu sameeyo oo hooyooyinka danyarta uu garab istaago uu yiraahdo waxbarasho firiyan ilmaha inii geynaya oo caalamka intuu ka soo dhameeyay hay'adaha uu ka soo dhameeyo la hoos gala meel walba isaga madaxweyne uu waxa weeye iskuula jaban uu sameeyo ama iskuula waxba laga qaadayno uu sameeyo oo dadka soo kiciyo way ninka faantamaya adduunka kama dhicin madaxweyne intuu soo istaago noocaas oo kale Afrika xataa kama dhacdo iska badaa meel kale Afrika xataa kama dhacdo musiibadaas baa horta ummadii Soomaaliyeed ku habsatay shacabka magaalada muqdisho kacdoon bay bilaabeen kacdoonkii xalay ilaa shalay baa la dhaxgalay ciidamada amar lagu siiyay ganacsato iyo sidoo kale mas'uuliyad odayaal oo dhaqan horkacayay iyo dad shacaba oo ayagu hawshaasi rabay inay qaban qaadiyaan xabsiyada ayaa lagu guray ganacsatadii xalay shiraysay hotelka lagu daatay iyaga xabsiyada la geeyay oo xabsi ay ku jiraan baaritaanna qaarkood ku socda qaar kalena waa la sii daayay tamiin baa lagu sii daayay dawladdu marka waxay rabtaa waxaan rabaan sameeyni ha iga daba hadlin ha waxa way ha ka hadlin ha dhaliilin waxa aniga aan sameeynayo ha feerin ha eegin waxaan ku dhaho bas qaado waxaan anigu ku dhaho qaado waxaan anigu sameeynayo ha eegin baa horta magaalada muqdisho ka socota musiibada ummadda Soomaaliyeed uma wada sidna dhinacyo kale to way ka saameysay oo xagga siyaasad xumada laakiin xagga boobka iyo dhulkan la boobayo waa dhulkii magaalada muqdisho gobolka banaadir bay gaar u tahay bulshadii shalay farmaajo lahayd farmaajo soo bax ee loo adeegsanayay ee guryaha hor taagneed madaxtooyada hor taagneed maanta indhahan bay kala qaadeen xaqiiqadii bay ogaadeen xaqiiqadii waxa la yiri dad cunbaan inta nin waxa weeye wadani oo muslima iska kaxaynay ayaan waraa dad cun nin dad cunaan meesha keensanay baa la yiri oo meesha aan keenay oo aan kursigii saarnay waa noo gabaday leeyihiin xasan waa noo gabaday qabiilaan oo u gabaday bay shacabkii gobolka banaadir horta leeyihiin waynu eegi doonaa daawadayaal dhulka boobkiisa iyo iibinta ayaa socota haddana wayba kasii dartay oo garoonkii diyaaradaha magaalada muqdisho iyo dekadiiba iibo miis ka saaran bal halka ay ku dambaysay iyo shacabku sida ay uga falceliyaan iyo sidoo kaleeto sida ay ugu suura gasho qorshayaasha ay dowladda federaalku maanta ku dhawaaqday ee ayaan darada leh ee cadhada dhaliyay ayaynu eegi doonaa hadduu hadlayma wixii kasoo kordha muuqaaladeena dambe ayaana idinkula wadaagi doonaa anigoo sataag ayaana la socodsiin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo